okay so marka kood waxaan doonay horta inaan idin fahansiiyo luqadda inta badan reer galbeedka markay luqadooda dadka barayaan sababtay u baraanba waxa weeyaan inay diintooda faafiyaan taa waa inaad marka hore ogaata inta badan fundinka iyo hay-adaha iyo waxaan mashruucyada ku jira ee luqadda dadka baraya sababta dadka luqadda loo baray waxa weeye sida diinta iyo dhaqankooda loo fahansiiyo laakiin anagaba markaan muslimiin nahay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam waa kii asxaabiga u diray luqadda Hebrew inuu soo barto luqadda Yuhuudda sida iyagu dacwadu faafiyaan marka anagu waa inaanu niyeysanaa inaanu diinta aan taynaanu faafin karno marka luqadaanu baranno laakiin waa inaad adiguna faafinta aad ku daba xigsiisa ma kaleeto luqadda kaleeto iska baro hawlahaaga iska wado waa inaad adiguna luqadii aad ka faa'iidaysataa ama ummad kale aad xaq gaarsiin kartaa insha Allah siba khaasatan waxaan leeyahay dhalinyarteena Soomaaliyeed ama dadka waaweynba ee la shaqeeya ajaanibka ama ku dhex jira iyagu waa waajib bay ku saarantay inuu qofka diinta gaarsiiyo haddii kale maalinta aakhira qofkaas uu ku soo istaago wuxuu qoran yahay hebel maalin walba xafiiskan isla fadhinay hal mar diinta islaamka iyo kala muu sheekaysan ama waxba igama sheegin marka inta insha Allah inta aanu ka soo baxno marka dacwadaan maanta qaadan doonaa how to give da'wa and basic vocabulary marka ereyo kooban marka aad baan idin wada salaamaya aanu iska galno marka qodobka koowaad waxaanu baran doonaa waxa weeyaan Abrahamic religion baa la dhahaa Abrahamic religion marka la leeyahay Abrahamic okay Abraham ama Abrahamic waxa weeyaan the three religions Judaism Christianity and Islam which are all believed to originate from Allah or God and were conveyed through all the messengers from the time of okay meesha banaan waxaan doonayaa soo buuxisid bal cidii karataan oo eegi doona insha Allah diinta islaamka si fiican u garanaysa Englishkana fahmaysa okay isku daya marka meelaha banaan soo buuxisan marka the time of to the prophet okay marka diinta nabigii ugu horeeyay ka soo bilaabantay waayo okay iyo nabigii ugu dambeeyay su'aasha lagu weydiinay waa inta marka xaggan waxa weeyaan imika dad eegtid Abrahamic religion waxa la dhahay waa nabi Ibrahim marka la leeyahay in Arabiga waa Ibrahim okay marka saddexda diimood Judaism okay Yahuuda ugu horeysay Nasaarada ku xigtay Christianka diinta Islaamka ugu dambeysay marka la leeyahay saddexda marka la isku daro Abrahamic religions ayaa la dhahaa monotheism la dhahaa monotheism laakiin taas waa eray kale Abrahamic religions la dhahaa marka diimihii Nabi Ibrahim qasadiisa waa wada garanaysaan jeclay marka sidaa lagu magac daray which are all believed kulli dhammaan waxa la aaminsanahay inay originate macnaheedu waxa weeyaan ee ka soo dhasheen ama ka yimaadeen oo keenay from Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala Englishna waxa la dhahaa God okay anagu inta badan ma jeclaysano ereygaas laakiin marka diinta faafinaysa waa inaad fahansiisaa qofka erey wax ku fahmi karo okay marka Allah subhanahu wa ta'ala iyagu waxay yaqaanaan God and were conveyed marka waxa weyn gaarsiiyay diinta dadka waxa gaarsiiyay through all the messengers nabiyada from the time of marka messengers ma nabiyada oo kaliya waa intii fariinta loo gudbiyo dhan anbiyada qaar baa ku jira laakiin inta badan messenger marka leeyahay waa nabi baa laga hadlay from the time of laga soo bilaabo nabigii laga soo bilaabay diinta islaamka nabiga ugu horeeyay waayo to the prophet kii ugu dambeeyay waayo marka nabiga ugu horeeyay iyo nabiga ugu dambeeyay let's try isku day inaad soo qortaan marka aan ku soo celin doonaa insha Allah jazakumullahu khairan aad baan idin wada salaamay soo dhawaada okay maxamed cabdullaahi axmed beesani okay su'aasha dad qabtaan soo qora insha Allah comments ka noogu soo qora wixii su'aala okay wixii su'aala comments ka ku soo qora intii aan ka jawaabi karo waan ka jawaabi doonaa insha Allah marka waxaan doonayaa meelaha banaan isku daydaan inaad soo buuxisaan nabigii ugu horeeyay uu ahaa ilaa nabigii ugu dambeeyay diinteena iyo intee nabi ayay ku koobnayd hadda waan soo qaadan doonaa tirada inta quraanka lagu sheegay laakiin halka laga soo bilaabay iyo kii nabiga ugu dambeeyay way inta marka soo qortaan ka ku xigaan u sii wadi doonaa insha Allah marka wixii su'aalaad soo qortaana soo qor insha Allah aad baad maasantiin jazakumullahu khairan wa wada salaamaya okay next one ka marka waxaan jeclaan inaad fahanteen haddii yara dhaafo hadhood ku soo noqon kartaa maxaa la dhahaa live-ka markuu dhammaado videoga Facebook ay la soo dhigi doonaa marka xaggan waxaanu qaadanay ereyga anigu baan idiin sheega
the time of Adam alayhi salam weeyaan. Adam to the prophet Muhammad. marka jawaabta xaggaasi waa Adam alayhi salam ilaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. saasaa laga doonaya. Adam to the prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, including the prophet Abraham, oo ku jiro Nabi Ibrahim. Okay, nabiyadii diinta soo faafinayay dadka soo gaarsiiyay kamid ahaa. marka you have to know how to say this in English. inta yar haddaad doonayso inaad qoratid, soo saarta buug iyo qalin, soo qaata, qora, xifdiya, saad hadhow markaad qofka diintaad yara fahansiinaysid intan oo kale dad kor ka haysid qofka waad u sheegi kartaa erayadan haddaad fahansantay. ka ku xiga markaa prophet markaa anagu nebi baanu naqaanaa soo maa nebiga. marka in English waxaa la dhahaa a person Muslims believe was chosen by God. Okay, in English ba prophet baa la dhahaa nebiga. marka waxa weeyaan qof ay dadka muslimiinta aaminsan yihiin inuu Rabbi subxaanahu wa ta'ala doortay. Okay, God marka Allah subxaanahu wa ta'ala to teach two core messages, inuu qofkaasi laba fariimada ugu muhiimsan. waxyaalo badan buu qofkani dhigayay, nebiga wax badan buu dadka gaarsiiyey, laakiinse asaaskiisa waa labadan ayaa ugu muhiimsanaa. koowaad, Allah alone should be maxay xagga idinkaa soo buuxinaya, Rabbi subxaanahu wa ta'ala oo keliya ina maxay. Okay, marka ereyga halkaa gelaya waad garanaysaan in English, af Soomaaliya ku garanaysaan malaya. marka waan idin sheegay af Soomaaliya baadaan idinku sheegay Englishka bal cidii spellingkeeda saxda la caabudo weeyaan, in Rabbi subxaanahu wa ta'ala keligii la caabudo. fariinta ugu weyn ee muhiimsan nabi walba loo soo dhiibay wax weeyaan ilaahay keligii caabuda. And two, people should strive to live ethically by treating others as they wish to be treated. iyo dadku inay noolaadaan si dad wanaagsan oo ixtiraam iyo akhlaaq iyo maxaa la dhahaa sharaf ka wada dhexayso, sidoo qof walba jeclaana isagana lala dhaqmo. marka wanaaga jaarka, wanaaga masaakiinta, wanaaga ehelka, reerka, qoyska, waxaas oo dhan, ganacsiga, daacadnimada, waxyaalo badan bay diintana baraysa. should be treated. Okay, Adam is considered, Adam marka waxaa loo haystaa to be the first prophet and Muhammad is the last. Okay, waxaan iminka idin sheegay soo ma, Adam ayaa u horeeya, Nabi Muhammadna waa kii ugu dambeeyay sallallahu alayhi wasallam, with many others in between. Okay, marka imise nabi of whom are mentioned by name in the Quran, imise nabi ayaa quraanka lagu sheegay. malima kala dheer imtixaamaya inta nabi ee quraanka lagu sheegay cidii sheegi karta xagga tirada ku soo qorto. xaggana la caabuday ereyga af English ku qori kara, ilaahayna keligii la caabudo ereyga caabudinta in la caabudo af Soomaali ama English maxaa lagu qornaya. xaggana waxaad ku buuxinaysaa inta nabi ee quraanka lagu sheegay. Okay, let's see. Very good. Adam and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Very good. Was si wanaagsan. Okay, Nabi Adam and Muhammad. Very good. صح. جزاكم الله خيرا. To worship. Very good. Muhammad Abdullahi ya Abdurrahman baa gartay. laakiin se Abdurrahman waxaad samaysaa aada oo ka dhig. Okay, worship waxa weeyaan waa markabkan dagaalka lagu galo, laakiin Muhammad Abdullahi Ahmed baa noo gartay worship. Very good. Okay, Ibn Yusuf as-Salam si fiican. Okay, should be worshipped. Okay, and 25 صح. Ibn Yusuf as-Salam as-Salman ayaa noo gartay shabaabta. Very good. intiina kala soo wata. marka waa worship. inta nabiga quraanka lagu sheegana waa 25. Very good. waa 25. 25 ayaa quraanka lagu sheegay. waliba inta ugu muhiimsan ama inta badan soo noqda oo iyagoo diinta Kirishtaanka aad uga caan yihiin iyo diinta Yahuudaba waxa weeyaan Nuux alayhi salaam, Ibrahim alayhi salaam, Isxaaq, Ismaaciil, Nabi Muuse, Daawud alayhi salaam iyo Jesus waxa loo yaqaanaa Ciisa. Okay, Nabi Sulaiman uu ka maqan yahay, Solomon bay yaqaanaan, Sulaiman alayhi salaam, oo Daawud nood garanaysaan, Daawud iyo Sulaiman waa aabiyiinkiisa. marka Daawud waxa loo yaqaanaa David. Okay, marka Moses-na waa Muuse, Ishmaa'eelna waa Nabi Ismaaciil, Isxaaq, Ibrahim alayhi salaam, Jesus-na waxa loo yaqaanaa Nabi Ciise, Noah-na waa Nabi Nuux alayhi salaam. marka qisooyinkaas oo dhan waad garanaysaan insha Allah. haddaanad qisooyinkaanad hore barana dib u raadi,
ama dib sheekooyinkooda usoo akhriso saa dadka markaad diinta u faafinaysid sheekooyinkanoo kale aad uga sheekaysid waa iyagu dadkan way aaminsan yihiin qofka kirishtaanka ama kula shaqaynaya ama xafiiska kula jooga ama aad isku jaamacadaad tihiin dadkan oo dhan waxaa laga yaaba inuu aaminsan yahay marka haddaad uga sheekaysid diinteen islaamkaba dadkan way aqoonsan tahay weliba diinta islaamka waa diinta keliyata nebiyada oo dhan aqoonsan tusaale oo kale yahuuddu nebi ciise iyo nebi maxamed bay diidan yihiin soo ma yahuuddu nebi ciise ayay diideen nebi maxamed ba iska dah kiristaankii nasaaradina waxay diideen nebi maxamed sal ly slam marka diinta keliyate ee nebi maxamed iyo nebi ciise iyo nebi muuse kulli la aqoonsaya waa diinta islaamka oo keliyata ayaa dhammaystiran marka laga eego nebiyada iyo xaggan cibaadada iyo waxyaalo kastaba ilahay baa noo sheegay iyadaa dhammaystiran kuwa kale oo dhan waa laga soo guuray okay marka aanu sii wadanno markaan eegna insha allah intay noo garatay very good masha allah جزاك الله خير very good زكريا يعقوب زكريا يحيى okay marka yaxya oo kale joshua la dhaha joshua waad maqatay soma in badan oo dad kenyati ayaa xoog la baxa walaalina kenyatiga ama dadka kenya jooga joshua magaca joshua ama reer galbeedka cadaanka oo kale waa yaxya iyo joshua bixiyeen okay yusuf nabi yusuf isaguna qisadiisa aad u caana waxay dhahaan joseph okay marka magacyada waad ka baari kartaa google-ka kuyaa jecesha insha allah saad usoo saartid hadhow marka qofka markaad diintaad fahansiinaysid inaad labada dhinacba aad ka eegi kartid insha allah okay aanu ku noqono marka let's continue ka ku xiga assalaamu calaykum ereygaas inta badan dadku ku weydiin doonaan ama wax qoran doonaan dee ereygaas macnihiisu waa maxay maalin walbo 10 jeer baad dadka ku salaantaan what is the meaning marka assalaamu calaykum waxa weeyaan a common greeting used by Muslims around the world waa salaan ka dhaxaysa muslimiinta oo dhan adduunka weliba qasooyinka qaar baa lagu soo sheegay assalaamu calaykum waxayba ka timid nabiga ciise calayhi salaam baa la isticmaali jiray ilaa nabi muuse xilligiisaba qaar baa isticmaali jiray marka ereyadun baa sira badbedeli jiray laakiinse nasaarada kirishtaanka buu isticmaali jiray baa layidhi okay dhawaanu bay joojiyeen diinta islaamka baa ilaa hadda sii wada marka around the world which means peace marka intaas waxaan doonayaa inaad dhammaystirtaan ereyga assalaamu calaykum peace muxuu noqonayaa okay in arabic marka in english baan doonayaa peace maxaa la oranayaa marka the response isaguna waxa weeyaan wa calaykum assalaam may peace inta kalena too okay marka intaa dhexe waa isku mid marka waxaan doonayaa intaa u dhexeysa maxaa la oran doonaa marka labadaasi waa isku jawaabtooda isku mid bay noqonaysaa marka hal mar baad soo qori marka peace maxay assalaamu calaykum maxay u dhigantaa englishka ayaa ku sheegi kara english ahaan ayaa ku sheegi kara okay maasha allah soo wada okay cabdullaahi ibn cabdi aad soo qortay jazaak allah khayr spellingkun iska yar hubso very good Abdussalam Adam, very good. Peace be upon you. Very good. Abdussalam Adam by no sahay, peace be upon you. Marka haddii lagu weydiiyo macnaada assalaamu calaykum waa maxay waa peace be upon you. Okay? Marka jawaabteeduna waxa weeyaan peace be upon you too ayaa la oranaya. Okay? Marka haddii lagu weydiiyo salaantaasi macnaheedu waa maxay saasaad ugu fasiraysaa qofka aad diinta doonaysa inaad gaarsiisid insha allah. kaas uu iska fudud yahay ka ku xigaan usii gudubna marka insha allah waxaa lagu iri 5 pillars of Islam okay 5 pillars of Islam shanta tiir ee islaamka there are imisa okay already that's very simple jawaabta waa wada haysaa there are imisa tiirar weeyaan central practices of Muslims marka central practices waxa weeyaan ficilo ama ficilo la qabanayo the central oo dhaxdhax oo muhiima oo centerka oo shantaas ay ka kooban tahay maxaa la dhahaa diinta iyada sideeda marka loo sheegaba inta ugu muhiimsan centerkeeda marka to help establish a spiritual relationship with Allah subhanahu wa ta'ala ama God
marka shantaasna waxaa lagu talagalay maxay inaad establish garaysid establish marka waxa weeyaan samayntii ama dhagax dhigiddii adkaysidii spiritual relationship spiritual marka waxa weeyaan xiriir idiga dhexeeya oo qalbiyana midaan la arkin oo dareen oo de iimaanka spiritualka waxa la oran karaa iimaanka xiriir iimaana oo kaa dhexeeya adiga iyo rabbigaaga okay kii ku abuuray allah subxaana wa tacaala kuwaasina oo ah they are shahaadada marka waxa weeyaan marka hore waa inaad profession of faith waa inaad qirataa oo aad ku dhawaaqdaa inaad aamintay diintan islaamka ilaahi subxaana wa taala iyo nabigiisa inaad aamintay okay or profession marka waxa weeyaan profession marka waxa weeyaan inaad ku qirtid ama aad ku dhawaaqdid sheegidda of faith iimaanka salaad or 5 daily prayers waa salaadna waa shanta salaadood waqtigii maalin walba la tukado zakat or mandatory donation waxa weeyaan waa zakaadka weli waxa weeyaan marka qofka hantidiisa intaa dhaafta weeyaan marka qofka maskiinka oo kale waxba haysan saka laga qaadi maadaama hanti haysan laakiinse inta kale zakaadka waa inaan iska bixinaa weliba soomaalida in badan ba ayaa aad baan ugu hooseynaa marka la eego dhinaca bixinta zakaadka marka zakada waa inaanu ku yara dadaalnaa xoolaha iyo wax walbaa noo barkoobi laha okay waxaad arkaysaa dad beeraleya ama dad guryole ama dad xoolo fara badan leh ama dad ilaahay barwaaqo dhan uu siiyey haddana sanad 4-5 sano 10 sano aan saka ka bixin hantidaa dhulkaa iska yaala ama guriga aad leedahay haddii aad qiimaysid waa inaad saka ka bixisaa haddii intii laga rabay ay ka badantay hantidan hadday tahay wixii nolol maalmeedka ka soo hara waa inaad saka ka bixisa okay shuruudaa jira sheekhda inaad soo weydiisatid aad cilmiga aad soo baratid waa inaad ogaataa wixii saka lagugu leeyahay waxaan lagugu lahayn waana yarta wax yar ma wax badan ma 2.5% okay marka mandatory donation waxa weeyaan waa donation waa taburucaad laakiinse waa bixintii lacagta oo mandatory waa qasab waa diinta islaamka ay ka mid tahay sawm or fasting in marka xilimaa la soomaa and ereyga kale pilgrimage maxaa la oranayaa okay or pilgrimage marka bishee la soomaa pilgrimagena maxaa lagu oranayaa in Arabic okay marka imika Englishkii baan ku daayay Arabigan kaa doonaya so let's see what the students are saying jazakumullah khairan very good very good peace be upon you peace of Allah be upon you very good peace of marka Yasin Abdurrahman peace of Allah be upon you صح طاهر نواد صحده ما شاء الله upon iska صح be upon you و UPON ويا مركا okay ما شاء الله جزاك الله خير عبد السلام 5 very good و 5 labada hooseen doonaya marka holy month okay very good Ramadan very good جزاكم الله خيرا وصح وين أحمد كافي جزاك الله خيرا holy month وصح لكن بيشها واحد كادوني مع رمضان إرجع كلنا pilgrimage وامحي very good عبد السلام آدم حج okay pilgrimage كنا حج okay very good فرحين ده والله المركو 10 كده ما ضايع يلا مركو حاجة سرات كيدي دونت إن شاء الله أما page كما دتك شيء لمرضى حق واسوق قرن وحفيز كوي بدين مركو كاتش عشاء الله حريري كرته very good إفراح محمد حج جزاك الله خيرا عن رمضان very good okay أنت فهمتين let's go to the next one okay so Quran marka we have the holy book of Islam Quran marka ku weydiiyaan waa maxay Quraankani ama kitaabkani waxa la oranaysaa this is the holy book of Islam marka sharaxis weyn which is believed to be the words of Allah waxana la aaminsanahay ama aan rumaysanahay inuu yahay kalaamkii Rabbi subhanahu wa ta'ala hadalkii Rabbigeena that were revealed to the Prophet Muhammad lagu soo dejiyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okay the holy book of Islam which is believed to be the words of Allah that were revealed to the Prophet Muhammad the word Quran literally means the recitation ereyga Quran laftigiisa marka English lagu tarjumo waxa weeyaan the recitation okay Quraanka marka wuxuu ka koobay suurado marka suura waa maxay suurada haday ku weydiiyaan waxaad oranaysaa
surah is a chapter of the Quran. Waa chapter ka mid ah Quraanka. There are tiradan kaa doonaya imise suuradood ayaa Quraanka ku qoran. Marka how many chapters? Imise chapter weeyaan ama suuradood. Tiradaas lagaa doonaya. Imise suuradood ayuu Quraanka ka koobayay. Ma soo qora tirada insha Allah. Very good. Jazakallah khairan. Ubax, very good. Xusta Awliyo, Mukhtar Mohammed, Jazakumullah khairan. Ahmed Gagale, Jazakumullah khairan. Very good. Marka, how many surahs are there in the Quran? I want to know how many surahs. So a chapter of the Quran, so surah is a chapter of the Quran. There are how many? I want to know the number. Very good. Muhammad Thabit, Jazakumullah khairan. Very good. Muhammad Gaidi, very good. Okay. So you have to be able to explain this to a non-Muslim. Okay, waxaan doonayaa inaad dadka aan diinta aan garanayn oo inaad fahansiisaa. Siba khaasatan mar labaad waxaan ku celinayaa dadka la shaqeeya ajaanibta ama wax la barta ajaanibka. Waa inaad mid walba aad isku daydaa inaad wax yar gaarsiisa. Haba ahaatee inaad linkiga YouTube-ka aad u dirtid haddaad faahfaahinta siin kari weydid. Linki yaroo YouTube ah bal intan dhegeyso ku dheh. Hadho aakhire linkigaasaa ku difaaci doona insha Allah. Lagu oran doonaa intaasaad u dirtay qofka waxbaad yara fahansiisay waad u sheegtay. Farxiyo indho online-ka ma ka dhigtaan online-ka walaal ha online-kana ku dhignaa walaalkiisa waa English, Arabic iyo af Soomaali. Okay? Marka intani laakiinse waa part of the English language marka online ahaan baa lagu wada dhigaa marka lamradood la xiriir doonta insha Allah. Najma Noura, there are 114 chapters. Very good. Jazakumullah khairan. Amazing. Very good. MashaAllah. Si fiican baad u wada garateen. Okay, the last one kii ugu dambeeyay nimka soo gaarnay insha Allah. Hadith. What is hadith? Haddii lagu weydiiyo Quraanka waad sharaxi kartaa. Hadithkana waa inaad sharaxi kartaa. Hadithka waa maxay? Hadith are sayings or actions of the marka sayings hadaladii ama ficiladii yaa sameeyay marka hadalada yaa yiri ficiladana yaa sameeyay. Hadithka marka yaa laga soo ururiyay. Marka inta laga soo ururiyay waayo that were recorded by his inta soo ururisana waayo. Okay, labadan way yaraadageen. Marka inaad garataan bal eegi. And later collected and preserved for later generations. Okay? Marka xilli dambana waa la isku soo ururiyay. Marka Muslim iyo Bukhari iyo Tirmidhi kuwaas oo dhan baa ayaa kitaab ka dhigay markii dambe isku soo ururiyay. Si ummadaha soo socda uga faa'iideystaan. Marka sayings or actions of the marka sayingska hadalada iyo ficiladii ayay hadalkii iyo ficiladii ayaa laga qoray that were recorded by his cid qoraysana waayo. Okay, labadaas aan diga doonaya marka insha Allah kan cidii garataan u eegi doona. Very good. Jazakumullah khairan. Ahmed Macalin ha ku soo dhawaal 10 slide-kii ugu dambeeyay marana laakiin waxaad sameyn doontaa insha Allah video markuu dhamaado dib baad u soo daawan doontaa insha Allah from the beginning. Marka already you can take part. Very good. Ahmed Gagale, Awais Hassan, Prophet Muhammad. Very good. Jazakumullah khairan. Marka hadithka are sayings or actions of the Prophet Muhammad. Marka recorded by who? Okay. Ya kasoo ururiyay. Okay. Okay, Ahmed Kafi. No, not Bukhari and Muslim. Bukhari and Muslim xilli dambe ahayn. Mar dambe ay ku qoreen oo kitaab ku qoreen, laakiin cidii la joogtaa la doonaya. Dadkii la joogay ee ka qoray waayo. Okay, actions of sayings or actions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Talabaad baan diga doonaya. Very good. Cidii markaa soo ururisay ama xadiidka ka soo warisay. Cidii soo warinaysa waayo. In English maxaa la oranayaa? Ifrah Muhammad, Prophet Muhammad. Very good. Ka koowaad waa Prophet Muhammad ka waan isla garanay. Ka hoosaan doonana. Recorded by yaa soo duubay yaa soo wariyay dadka soo warinaya yaa magacooda maxay? Very good, mashallah. Abdulhakim M. Omar baa inoo gartay. Companions. Asxaabta, yes, asxaabta marka asxaabta la doonaya English inaad ku tiraadaan. Dadka ka soo wariyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadaladiisa iyo ficiladiisa waa asxaabta soo ma? Marka asxaabta in English waxa la dhahaa companions.
cabdixakiim maxamed cumar baa inoo gartay jasaakum allah khayran companions very good saxaaba yes waad garateen abu hureyra waa mid kaliya taa caisha way soo wareysay abu hureyra cumar abu bakar kulli way kasoo wada wariyeen laakiin kulligood marka la isku daro waxaa la oranayaa companions okay companions jawaabta laga doonaya waxa weeyaan companions marka isku daya inaad qortaan companions very good mumtaaz ina shukri cabdi waad noo soo saxday jasaakallah khayran marka waxaan jeclay inta inaad si fiican uga faa'iidaysateen intii fahantay maasha allah intii imika xagga dambe naga soo qayb qaadatayna waxaad samayn doontaan hadhow markuu casharkani dhammaado pageka dib baad usoo geli kartaan xagga hore aad kaga soo bilaabi kartaan waxaa lagu saleynaya maanta waxaanu qaadanaynay how to give dacwa to non-muslims sidee diinta loo fahansiiya ama qodobada ugu muhiimsan qofka loogu sharaxi karaa oo aad dacwad u gudbin kartaa okay marka intii u baahan insha allah nambaradana xagga saraad kala xiriiri doontaa waxaan jeclay insha inaad ka faa'iidaysteen fadlan videoga sii share gareeya asxaabta sii gaarsiiya si iyaguna uga faa'iidaystaan hadhow hal qof hadduu diinta islaamka qof gaarsiiyo qofkaasi ku muslimo adna ajarkiisaad ka helaysaa ilaa aakhira wax walbuu sameeya insha allah intaasaan niyeysanayna jasaakum allah khayr intii ka qayb qaadatana aan jeclay inaad si fiican uga faa'iidaysteen anagana noo soo duceeya hawsha ilaahay noo wada fudaydiyo maasha allah imika si fiican baad usoo wada qorteen maxamed geedi maxamed thaabit mukhtaar maxamed xusto companions very good جزاكم الله خير سبانيكم سكوب سو مختار محمد انتينا كلا سبانيك واد صحدين اد بادني والسلامية جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته